waxaan arkay hawiye ku mudaharaadaya Minnesota dooni mayno daaro console bay raadinayaan golo deegaan inay ka noqdaan Minneapolis xaafada tobnaad hawiye dhageysta muqdisho maaha waa garowe meeshu Minneapolis waa garowe wallahi thumma wallahi bin kada dhawin maysan nag qof daarooda qof aan ahayn qof kala soo bixi kara oo ogolahay waa qof cadaan iyo aniga waxaan ahayn wallaana Minnesota u ogolayn hakaraana seegina ama mudaharaada ama baryaha dhulka indhaca ama galgasha yeelkadin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh qubnaha galanta waxaan ku dul istaagi doonaa isimadii iyo waxgaradkii Sool ee dagaalka ku jiray wadankooda ay xoreeyaan oo Xasan iyo Xamse u soo direen mission lagu kala furfurayo dagaalka ka socda Sool وليس كان لوجد القاضي SNM وعبسوين وجهي وادول استاجيا اسمدي ولوجد يا أورانكرا مسا أي سيرين قالوا كاس وكنا نحصل دونا سيدو كلا واحد دول استاجي دونا ماشي مرايكنا هيد ويليام ميابوليس مقالة الجرو واحد ميابوليس هيد هيركي هبر جديرة هيد دمعين إنا يحلوان يرو نوصا يقولد ديجانه oo magac hawiya sheegtay wali habar gidire in laga dhex doorto ay dhaheen tartan ku jiraayo oo cag laga dhuftay joojiya halkaan muqdisho ma hay waa garowaali qodobkaasna waa ku nool xasan doona sidoo kale waxa dul istaagi doona garowa uu ka socdo shir albaabadu u xiran yihiin oo ay ku jiraan madaxdii Arajan iyo madax kale oo kaga jira khadka Skype-ka shirkaas oo loo magac daray badbaado Puntland badbaado Canada weyd xamar Maxamed Soobax tiyo kala laga aabulaya sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Puntland sare ninka la yiraahdo General Moomin Cabdishire ayaa shalay si fiican oo la hadlay qoliyaha ciidamada aabulaya ayaga dul istaagi doona aan ku hormaro ismada gobolka Sool ayaa waxa uu timid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha fariin uga timid fariintaas waxa loo soo dhiibay xildhibaano u dhashay gobolka walow ay wada dhamaantood xildhibaanahaasi 10 kamid ah 3 kamid ah ayaa waday 7 bari ay ka ahayd oo dagaalku inuu dhab ka yahay ay cadeeyeen waxa la yiri waxa sameeysan isimow diyaarad baan soo direynaa diyaaradda soo raaca muqdisho imaada wada hadal ayaa idinkaga furanaa idinka iyo Musabiixi odayaashii hawiye ee xamar joogay waxay hargeysa joogay waxba nabadii waa ka keenay waayeen ilaa haddana Muuse waa arki waayeen marka anoo madaxweynihii qaranka waa Xasan Munaafiq iyo marxuum Xamse ayaa idin hor fariisanayna anaga Soomaaliland la hadlayna noo imaada xamar baan idinku qaabilayna isimadii sida aan xogta ku hayo arinta waa diideen isimadana hore maxaa oor yaalay ay dhaheen wax wada hadal ay la gali mayno ilaa ciidankana la ka dulqaado waxa la damcay simada in diyaarad lagu qaato murduf boorsa lagu rito xamar la geeyo ummadana loogu sheekeeyo qoliyii dagaal ku jiray la yiraahdo wada hadal baa socda inta 25 May ee wixii ka shaqeeyay la gaarayo inta dabaaldegii u dhacayo jamhuuriyadda baridu in xamar isimada lagu mashquuliyo in kala shaki SSC ku dhaxdhaco in la yiraahdo isimada yadii dhamaaya dagaalkana galiyay boosan ugu qaadeen xamar bay naga dajiyeen ayadoo halgankii meel cad aan loo soo harin in jaraahirtu kala shakido in dhaxdul baahanta dhexdiisa ay ka bilaabato oo la yiraahdo meesha halganka hoos socday waa la qaraab tagaya dantaas laga lahaa isimadu waa diideen arintaas wada hadal gali mayna la yiri haddii idinku noo imaanaysaan noo imaada halkan annaga waxaan rabnaa 18 May ka hor ina annaga iyo isaaq kala baxnaa rabnaa intaas lagu yiri waa sida aan xogta ku hayo niman xildhibaana ah oo xildhibaana SSC u dhashay anigu aan magacooda halkan ka sheegayn ayaa ololaha wada oo waliba 3 xildhibaana soo baxoy isimow wada hadal baa la galaya ee Soomaaliland aqoonsigooda annaga la fiirana aqoonsiga SSC u baahan tahay maxay tahay aqoonsiga SSC u baahan tahay maxay tahay ilaahay baa aqoonsan dadkeedana aqoonsan
ninka ku sheekaynaya ee xasan ugu raadinaya ee xasan usoo raacaya aqoonsiga SSC ku helaysaa programkan SSC aqoonsi uma baahna ilaahayga subxaanahu wa tacaala wuu aqoonsan yahay anigoo iska leh SSC-na waa aqoonsana maxaan kala u baahna gaaladaa soo hadhaya wax leefleefka sandullaan kaga qaadanaya sandulli aqoonsiga gabadha dhaxaa soo hadhay sandullaan kaga qaadaya sidii aan sanka jubbaland oga geliyey baan tan oga gelinaya neeba waxa la yihahdo isimada waxaan leeyahay guddiga waxaan leeyahay waxgaradka waxaan leeyahay arrintaa la soo hoos dhigay hadday dhacdo inay aanu qaadano burburkii dhulbahantaa bilaabanaya in la yidhaahdo shandad baa lagu qaaday SSC xamar ayaa laga iibsaday wadahadal baa xagga lala furay wadahadalka ii banaan maxay ta war wadahadalka xildhibaanada wada arrintaanow wadahadalka annaga ee muuse noo furan maxay tahay ciidankiisaaba idul fadhiye horta bal ciidankiisa aska dulqaado yaa wada hadla waxaa wada hadla rag is awood le-eg baa wada hadla yaa wada hadla rag kale adkaan waayaa wada hadla yaa wada hadla rag is-itaal le-eg baa wada hadla yaa wada hadla rag muruq isu sheegtay oo kala bixi waayaa wada hadla laakiin nin dhulka iga haysta maxaan kaala hadla hadalkii ahaa waxaan idinkaga tegayaa hadalkii ahaa garaad jaamac garaad cali hadalkiisii wada hadal wuxuu noo furmayaa markaad dhulkiina tagtaan hadalkaasaa noo ah xasan waxaan leeyahay iyo ismaaciil cumar geelle khayr allah idin siiyo dad jamba loo dhigo ma nihin dad ayaga dhexdooda la furfurana ma nihin maanta maalin dhulbahanta furfurmaya maaha wallahi furfurmayo oo bilaahi furfurmayo oo tawaahi furfurmayo bal isaaq iyo jamhuuriyadda barida weyn baa furfurmaysa taan iyadina geliye dhulbahanta waaye arag buu noqday xilligii loo kala dabqaadi jiray ma aha maanta dirin bay ku wada fadhiyaan 14 garaad iyo 30 haddii aan ku reebo guddiga isku talayna baxaan maanta wallahi aan la kala furayn halkaasaan qodobkaa kaga gudbay ismow si fiican maqla afkii shacabkaan kula hadlaya danta laga leeyahay wax kala maaha in annaga shakina ku kala beero wey in la yidhaahdo ciidankiina dul fadhiyo ayaa xamarna loo kaxaysta in la yidhaahdo wax dagaalka saddex geesoodka ah Djibouti ma jiro oo xasan iyo xamsi isku dhaqayaan meesha taasna nooma cuntano ninkana dilaya iyo kan libax nin galay iyo nin galaday og ninkii waxna talayna waa ognahay beerka ka ogsooni ninkii walaalnimada soo hiliyana beerka ka ogsooni laakiin dad ma lihin maanta raal lagu gadanayo qodobkaas halkaasaan kaga baxay xaasha wujuud qodobka labaad dul istaagaya waxa weeye meeshii Mareykan ahayd Minneapolis magaaladii garowe tuu ahayd reerkii habar gidir ahayd wiilka yarka ah bay soo dhexgeliyeen war maxaad doonaysaa waa musharax konsolka degmada tobnaad war meeshaani xamar ma aha walaalayaal meeshaani xamar ma aha meeshaani waa garowe walaal Soomaaliyeed baata waxay ku hayaan gabar cadaan buu la sharaxan yahay gabadha cadaanka ahayd aw gabadha cadaanka wuu la sharaxnaa gabadha cadaanka aan u codsiin lahayn sida kii hore hawiye aan u reebnay baa kana u reebi lahayn laakiin hadda kaba boodnay hadda gabar ma jeerteena la sharaxan gabar ma jeerteena baa hadda wixii la bilaabo sharaxan degmada tobnaad ka sharax maxaa samaynaysaa hadday sharax taas ka laabato musharaxnimadana gabadha cadaanka baa qaadanaysa sababta anaga ee cadaanku meeshaana Minneapolis waa wada leen hawiye waa walaalkay baa tahay Soomaaliyeed laakiin baraka mari maalinta lagu dhiibo meeshaan fariiso lagu yiraahdo maalintaas bilaabanaysa unuka xaka baxray unuka xanaanay unuka sanaanay unuka ma ka bixi karo Minneapolis kama bixi karo unuka raali ahaada walaalayaal raali ahaada magaaladan waa lagu kala dambeynaya 10 xildhibaan ka badan bay leedahay waa daarood D5 kaliya cid kale oo ka noqonaysa ama jiro annaga ya cadaanka cid inoo dhaxayn mayso annaga ya cadaanka marka Soomaali anaa ku metelaya Muqdisho walaalkayow ku eko galmudug ku eko Hirshabeelle ku meelaha Soomaaliga ku gudilo wallahi tan maarta tan wallahi kaagata raali ahaada khayr lahaansi sababtoo waxaan ogahay maalinta kale lagu galiyo haddii aan ku reeyay maanta fagasho bilaa unuka meeshaas abaal la ka raadin mayo waana ku bartay hayga caawal xumaan runtaan ku sheegaya anigu munaafiq maahay afka xaqiiqada ee daawad baan kula hadlay
إلهي عصر هذا كل أرتي ويل كعلى بربلادين وأكوا وده هذا الموضوع كودي أيام أمريكا اللي يري جبر مسيرتها عشان حن مدهرة يوه كذي تبصي أو وراي كم حكواية يدا ولا أكوان إنا لله وإنا إليه راجعون دوني مين أدارو دوني مين يا بوليس بريء واه ولا مدهرة كفوا دا هذه اللي أنا مدهرة أنا كبه على الشدة أنا قيية أنا بيرو دا يا بوليس نين أنا حلي بان كدقين نبا كمان نقول ما كان نقول adiga iyo cadaan kan nabiga xiga uluka walaykata uluka xamar bay ugu daashatay xamar baan u nacay uluka xagee ka dhacday xagaa taatay uluka waa isoo daashatay miyaa bolis uluka leega daba keenana raali kamaahi afka caadiga ee aan muraafaqad ku jirin ee dhabtaadan kuu sheegaya iyaan dhaqaala kaaga bixin yaa hadii abaal kaaga dhicin kii shalay hawiye sida wadada maray uu kana maraya intaas ku sheegayaan intaas baa walaalkay hawiye ku sheegay meelaha South Africa iyo Uganda iyo xilbaan ka raas ilaahay bay ka tahay inaad mar kala dhameeys Mareykan ma walaalkay kala dhameey ana fadhiya Mareykan iyo waliba wadada Western Godan fadhiya ma walaalkay ogolaan kaaga ma ogolay xamara kugu filnaato xamar baa dunida caarga soo oodaya marka khiyaariga iska daayawiye iyo baryaha dhulka dhacaysaan dhagaxa tooysan mudaharaadka daaro dooni mayn waxa ma soconayaan Mareykan cadaan iyo daarood ayaa lef wixii taam gaas ayo umada in loo adeego mas'uulnimo umada in loo adeego daarood iyo cadaan kaasa ilaahay u xilsaar ilaahay wax kaaga qorin كمان قريدون حمر بلا كاغور حمر تعال لف خير لا كسيو انسان الله هانا كو كسو مني موغال كان موغال كوخيا دورشada hadda wali ma dhicin kaamilka ugu jira kan kuxiga natiijada aan umad tusaya natiijada baan umad tusaya marka hadda inta xaashaan waxa tiraadan waa seera galayda inta hadhow biri ma asaad dambe aad dhihi lahaa waxa ii sheegay maxay ahaa saan ma aha tan ma ku sheegay inta ku dhihi lahaa hadda tiraas waxa baxay qolka halka saan dhigo qolka ugu dambeeya dul istaagay waxa weeye garowe waxa ka soo shirka shirku labada xiriin shirkaas waxa u fadhiya madaxdii Aaranjan la neerayaashii adgaalki garowe waa fadhiya waxa kale oo qadka taleefanka ku jira Skype-ka asla ka hadlaya odaga Cumar Cabdishiid Masar Xalweyste iyo odaga Froolaha waxa loo aasaayaa badbaado Puntland shirkaas qodobada ka soo baxa waan sugaynaa waa wax si ognahay dani waa tuugtu ku dhalay wana ma food kama dhici karo diyaar ku rooya Puntland wax lagu darsan karo waxaas ka hadli doonaa way nafisayaan waa soo dhaweynaa waa ulila ka soo dhicin xiliga fiidiyowga duubaya laakiin gadaal ma ka dhageysan doonaa sidoo kale waxa jira odayaashu wiil yar oo ay wax u dhiibteen oo abaabul ciidan asna wata oo lacagtii 600 ahayd wax looga dhiibay oo gurigiisa ciidan lagu qorayo ciidan Malaysia lagu qorayo wiilka waxa la yiraahdaa Abdiyare waa taliyay hore booliska Puntland way waa kii lagu bedelay Muumin Cabdishire ama Muumin madaxweyne lagu bedelay way shalay waxa la taliyay booliska Puntland waxa uu sheegay inuu garow u dhashay waa adgaalay laftigiisu waa adgaalay shalay garow waa u dhashay garow inna ka yeeray mayabiye qaralaase iyo doorasho ma dhici karna yahay ka baxday amniga garow wax loo dhimay inna ka yeeray mayabiye wiilkii ku kaca xabadda madax ka dhici doonaa hadal cad kaga harimay xabadaas ku dhufta kaliye bal wuxuu yiri hantidiisa guriyihiisa hawa kooladiisa baan dhammaan taagin garan doonaa bi daan dheeranimo dawlad waxay u baahan tahay wax gacan bir qabto u baahan Abdiyare waa wiilkii madaxweyne badan Puntland ka geystay baabuurta waa haysta Puntland maaskare markii xil laga qaadaba baabuurta xantoob waxta meel ku xirta waa wiil aad iyo aad ugu mabay balse Muumin Cabdishire u daayay ayaan u daayay
wiil aan gacantiisu gabasho lahayn dani waxaa le haddaa cid magacaabaysid cid haddaa magacaabaysid sideedaba waxaa la magacaabaa qof waxna dili kara waxna noolayn kara waxna dili kara waxna noolayn kara intaasaan ku leeyahay walaasaan kusoo koobayaa waxaan sugnaada waa shirka Aranjan iyo go-aanka guddiga iyo go-aanka ugu dambeeya ee guddiga iyo isimada SSC ay ka yeelan doonaan munaafiq Xasan iyo marxuum Xamsi aad baan islaamaya. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ciao ciao.